محمد سعد براوي فيدي ما جرت هو وريري بيوريري waxa la ilaha inuu wax la dhaxo koreed haduu guntiga ku galo koomeel buu ka qaniini وريري anaga macawis ku dili doona insha Allah ta'ala hadaan joogsin hablaheeni yar yaraaba looga heesiya xamar kuwa xamar tee yar yarna Facebook ku caaya waa khaayimiin waa dulli waa waxa dalkoodii dadkoodii jiray u tagay waa inaynu Facebook ka dhignaa fidmo dad uriya oo xumaaday oo inaga xumaaday ka sheeg walaalayaal dalkii oo dhan waxa ka socota war farmaajo iigay wax la yiraahdo waxa soo dhacay ii kaada haddi waxa soo dhacay ii kaada haddi lees liigay ma maqan tuu protest vote buu helay boogtay oo niman la nacay oo dhul iyo cid laga dhacay iyo ku xumay isku xumay ayaa horta keentay waa garta laakiin waa nin badweyn ku jira waa nin foreigner Soomaali kale dadka aan xilkeen waxaan bilaa fiisa ku yimaadeen laakiin nin xil haya oo siyaasi marka la arkay ku balbala iska dhex socda ma hargeysa de waxa weeye nin kristaan oo kale diintii fadhiyo ma ogaan sanadii nin kristaan diin fadhiyo mabdii Soomaali weyn buu fadhiyo oo dadka naga waalaya tabaka waan qabanaba weey waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon oo muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo degay hargeysa waa la xiray anigu tooga leh aawad dimuqraadinimadi anigu haddaan ahay marka dawladda jecsan tahay muxuu sameeyay isagu muqdisho tagay wuxuu ka sheekeeyay wixii dhacay manika farmaajo u heesay haye heesta amaanta u qaaday laakiin aawad dimuqraadiyadii security wixii khatar ku haya oon xirina de kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayre saacid dooran wuxuu leeyahay walaa doortay Soomaali doortay waayo hilkooda xitaan dooran wala magacaabay madaxweyne farmaashan insha Allah ta'ala ka wada xiriirina ya dadkii wax xukumi jiray ma ogtahay anoo ninkan awslaa hadiis ku qaadan meena awska iibi jiray kuwa waan isagana eegina muxuu awood u leeyahay ka yaray magaalada NGO ka shaqeyn jiray Norwegian Refugees and Council ka shaqeyn halkan la joogay waa daayeer weeyaan kursi aanu qalmi la saaray Ethiopia dadkana waa lagu dhibaa waa lagu humiliate gareeyaa dumarkeena u badan yihiin dad ka wada waan kala hadalnaano safiirka Ethiopia laakiin wali abuse ku socdaa waxa weeye dawladda Ethiopia ayaa xuduudda ka mas'uula federal government-ka markaad ka tarawdid tawajaale waxa baasaboorka ay dukumentka ay dawladda federaalka laakiin waxa weeye iskala ka shanaad askar yar yar oo leeyahay iskuul dhaxaynay booliisiya oo isku reera oo isku jira magaalada saychik boysantoodu isku jira maxaa oran karaa 5 kilomitir ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan ina amarka reer qura ku atumo ku tunto oo dadka kale ku abuse gareeyo wax la ogolaan karo ma dawladdu waxaan sheegaynaa in arrintaasi ay ka dhicin karto in qabailku isdilaan aanu qabiil ma xukumi karo no reer xukumi karo dawladdu isku shaar u gaashada tii Maxamed Siyaad bare ayaa lagu arkay wixii ka raacay wadi ogeeyay lagu yaqaan madaxda Soomaaliya in mar kastaba gacanta wax siisay ay qaniinaan waa caado ay yaqaanaan tii bay ku celiyeen ma kala harin dalka Imaaraadka oo ahaa dalka qura ee Carbeed ee inoo furay khadka markii dawladda Siyaad bare burburtay ee Soomaaliya isku qasantay baasaboorka ogolaaday baamisharigeeni furay oo maanta aragtaysa inta baamisharaga joogta dekedeena camiray haddana macaawino ugu daray Soomaaliya in saa loo galana oo dadka iyagoo dawladda ahayn waxaas oo lacag siiseen waxaas oo tababar siiseen maanta taayid ku abaal gudayna war ka xunay lama qaybsan marka waan salaamid ka nahay ceebtaasna waa ceeb ku kooban Soomaaliya sidoo hore waxaan waxaan yiri qof waxba ahayn ka dhignay hero inta yar iska muraaqootay qabla xabxabka in horta laga dhigo hero
mad aragtay weli inan yaroo reexamaro inoo ooyisa oo tiri Soomaaliya waa la laayo ooyisa maartay maxay inaga wixii ka dhigay bilaa micnaa iduguna dhalinyartii bilaa micnaa joojiya dawladuna waxaan deeynaa qof bilaa micnaa oo caqli yar inay wax weyn ka dhigto oo sharfto demo ma xarig ma beestana haday xamar jeceshay ha joogto ay naga soo doonaysa xasan sheekh dalkeeni waa u qaybiyay inay waxa weyn naga dhigay dawlad goboleedka lixaad ee Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliland isku daray wixii guddiga waxaan sameeyay doorasho 22 xubnood ka kooban laba xubnood wixii waa Soomaaliya laba xubnood wixii waa Puntland way ku jiraan Soomaaliya sana ilaa bal Puntland mana askaas ilaahay ku leeyahay doonada dad hagaajiyo xasan sheekh oo aabii talin jiray oo ugu shirin jiray oo si qalad ah u furay meesha ayaa maanta kale Soomaaliya sanaad la ilaahay ku daarsay waxaan talin jiray markuu talay waxaan arki jiray baad arka waxaan talin jiray markabka uu keeno ina uu laayo sibirka ay isku dili jireen oo yeeshaan xamaaliya sabab madaxweyne laga dhigay maanta soo waxa ku hadlay ilaahay ku daaray wallahi markabkiina xamaal ku noqon doonto insha Allah ta'ala كان يرى ماشي قاينين وكذا وحنا أردت هبر جدير ماله عائلة وكي كاس كان لا الدولة دون هذا يعني الدولة هذا قرن معي ما نيك كان لي صوماليا يدي وحنا أنت دورها بده قرن نور فرح بقى تولها كاس ناد يلا ويا ركوني ما كانوا يسوق قيليسي إتكستوا كشاعة طنطا ما كان كاسي أنتوا كتلين يو بربرة قولي كتلين وارهن مدوجو وأردت لو سمعنا الحايستا صنع جماعة عدالة واحد شراء دولة قادة شيكس واحد جوكتا كونفورتا بدلان باهيستا ميل ما هيسو تيسي بقى ما هيسني وكسو هاي بالبركة تانية وضدك وعقل حن تولخ قرى كسبين وهي ما كسومالي كالبع بعضي تولخ إليهين كسبين وهي مامل هي بالبركة تانية المغرب كيم يا رئيس وزراء لا قد لسه هاي كوربشن كيس أدون كشيء كيني بحكوا هذي هو عقله مكره يعني اللي يوتهم مع شغلنا قبصنا منه شغلنا هو جود وحوي هو مركينه لكن لو تشوفوا معها ما دام إلا يعلم هذه لكن ما أنت لدرسي ولا هذي يعني ونمسكح الكورين بس كسيون أنا ولا على أي شيء ولا على كوكاتك سومال ما مدين كنا مدين على مدين على حمرها مدين البور هتك وخاص وهي البور كيل السوق بتاعي قشنا لقى سوق هذا ما خسونايا سومال الآن ولا للمني ونروح نسكت درسنا وخرت تقني كنا بتقلي واحد قف دكان كلية شو كي وان خسارون كادو في وان خاتجيا والله هاي سمع ولا هي جتين وان خاتجن هذا قبصة هنقول إسلام تحابة قادة وإذا تتنا يوصل هذا هاي أجسامنا